halkani waa BBC oo London idinkaga imaanaysa aad ka dhageysanaysaan mowjadaha gaagaaban kuwa efemyada telefoonka bogga internetka ee bbcsomali.com iyo weliba Facebook oo caalamka oo dhan aad inaga daawanaysaan. رمضان كريم جمعة وناكسن سيدا عدو دنتين أخيارتا هودا إنغالا حريرتاي وقلب جمعة ولبضا بيشا جون سنة كاللبضا كن إيو تضبية تبنكا برامجكا ضد جمعها أياد قوردو مغلي دونتان أو أينو كغاها لدونو عرمها أمانكا حسنينتا مقالة مقدشو إيو وليبهو كوديقستا أي ودو دولة صوماليا waxaa barnaamijka inagala qayb qaadanaya dad xilal hore u soo qabtay ama mas'uuliin xilal hore u soo qabtay iyo kuwa hadda haya iyo waliba aqoon-yahano arrimahan aynu maanta ka doodayno si weyn ugu dhuundolola qodobada wararka caalamkana waxa ugu waaweyn hogaamiyaasha caalamka ayaa si weyn u cambaareeyay talaabadii madaxweynaha waddankaasi Mareykanka Donald Trump oo Mareykanka uga saaray heshiiskii cimilada adduunka ee Paris sidoo kale waxa wararka ugu waaweyn xisbiga talada haya ee waddankaasi ee Koonfurta Afrika ayaa sheegay inay si weyn uga walaacsan yihiin wararka iyo emailada soo baxaya ee sheegaya heerka uu gaarsiisan yahay musuqmaasuqa u dhaxeeya saamaynta qoyska gubta ay ku leeyihiin xiriirka madaxweynaha la leeyihiin waa mar kale iyo barnaamijkii dooda jimcaha ee waxay la tahay barnaamijka Cabdinuur Sheekh Maxamed Isxaaq ayaa isku soo duway waxaan ku bilaabaynaa wararka BBC-da ee galabta waxaan inoo waramaya Axmed Cabdinuur mahadsanid mawlid hogaamiyaha Jarmalka Angela Merkel waxay go'aanka madaxweyne Trump uu Mareykanka uga saaray heshiiskii cimilada ee Paris ku tilmaantay wax aad looga xumaado. Miss Merkel waxay ku boorisay dhammaan inta danaynaysa mustaqbalka adduunka in ay sii wadaan hirgelinta heshiiskaas. Shir ka dhacay magaalada Brussels, madaxa guddiga Yurub Jean-Claude Juncker waxa uu sheegay in aysan jiri doonin ka noqosho ballanqaadyadii caalamka ee ahaa in la dhimo wasaqda warshadaha ka soo baxda. Xogeyaha guud ee qaramada midoobay Antonio Guterres ayaa isaguna sheegay in ay jiri doonaan hay-ado badan oo Mareykanka gudihiisa ah oo heshiiskan taageersan. waxaan si aad u hubaa in waddamada magaalooyinka iyo bulshooyinka ganacsiga ay ku guda jiraan dhaqaalaha aan cimilada khatarta ku ahayn maxaa yeelay kaasi ayaa ah mid wanaagsan oo ah dhaqaalaha mustaqbalka. dhaqaalaha aan deegaanka khatarta ku ahayn waa mid kale habka lagu noolaan karo qarniga 21aad. go'aanka Mr. Trump uu uga baxay heshiiska caalamiga ah ee isbeddelka cimilada waxaa laga bixiyay jawaabo kala duwan oo ka imaanaya hay-adaha quwadda ee Mareykanka gudihiisa. sharikada ay ka mid yihiin ExxonMobil, ConocoPhillips, Shell iyo General Electric ayaa ka soo horjeesteen ka bixitaanka heshiiskaas, laakiin qaar kale oo ay ku jirto sharikada weyn ee dhuxusha ka soo saarta Mareykanka waxay sheegtay in heshiisku uu qaldanaa. xisbiga xukuumadda dalka South Africa ANC waxay sheegeen inay aad uga walaacsan yihiin daabacaadda iimaylo daboolka ka qaaday saamayn aan loo baahnayn iyo musuqmaasuq qoyska hodanka ah ee gubta ay ku leeyihiin go'aanada madaxweyne Zuma. xisbiga ANC waxay sheegeen in waxyaabaha daboolka laga qaaday ay su'aal gelinayaan sumcadda dowladda. saraakiil reer Afghanistan waxay sheegeen in 4 qof ay dhimatay qaar kalena ay dhaawacmeen mar ay isku dhaceen dad mudaharaadaya iyo booliiska magaalada Kaabul. warbaahinta gudaha waxay sheegtay in 7 qof ay dhinteen kadib markii ay booliisku adeegsadeen rasaas nool iyo gaaska dadka ka ilmaysiiya si ay u kala eriyaan dad mudaharaad isugu soo baxay oo ka cabanaya xaaladda ammaanka magaalada caasimadda ah oo sii xumaanaysa. maxkamadda dalka Netherlands ayaa xukuntay in tijaabo DNA ah lagana qaado alaabooyin uu leeyahay nin dhakhtar ahaa oo dhintay
dacwad ay maxkamadda geeyeen koox carruur ah oo ku calool galay xarun bacrimin oo dhakhtarku uu maamuli jiray. carruurtaasi waxay la tahay in dhakhtar yaan karbaat uu yahay aabbahooda bayolojiga ah, uuna shahwadiisa si khaldan ugu isticmaalay bacriminta haweenka aan caadiga uurka u qaadi karin ee loo yaqaan IVF. dhakhtar karbaat oo dhintay bishii abriil waxa uu jiray 81 sano, waxaana la tuhunsan yahay inuu si qarsoodi ah u dhalay ilaa 60 carruur ah. dowladda South Sudan waxay sheegtay in ugu yaraan 15 carruur da'doodu yar tahay ay u dhinteen khalad dhacay iyadoo la isku dayay in laga tallaalo xanuunka jadeecada. shaqaalaha caafimaadka ee gobolka bariga Equatoria waxa ay si ku celcelisa u isticmaaleen cirbadaha tallaalka lagu fuliyo oo aan nadiif ahayn si ay carruurta oo dhan u tallaalaan. adeegyada caafimaadka ayaa aad u liitay dalka South Sudan tan iyo markii dagaalka sokeeye uu ka qarxay sannadkii 2013. xeer ilaaliyaasha dalkan Britain waxay dacwad ku soo oogeen musharax ka tirsan xisbiga Conservative dembiyo la xiriira qarash uu galay intii ay socotay doorashadii guud ee dalkan ka dhacday sannadkii 2015. Craig McKinley waxaa maxkamad la soo taagi doonaa bisha dambe ee Juulaay. waxa uu hadda u taagnaa in dib loo soo doorto toddobaadka dambe oo dalkan ay doorasho guud ka dhacayso. warkii waa naga intaas, Mawlid. aad iyo aad baad u mahadsan tahay Axmed Cabdinuur oo inala socodsiinayay wararka BBC-da ee galabta. halkani waa London. waa tahay ku soo dhowaada mar kale barnaamijka waxay la tahay ee dooda galabta ee Jimcaha. waxaynu barnaamijka sida aan horey u xusnay uu ku saabsan yahay arrimaha xasilinta ammaanka ee caasimadda Soomaaliya ee magaalada Muqdisho. waxaana markaasi jirta ammaan iyo dhaliil in loo soo jeedinayo hawshaasi. golaha wasiirada ayaa dhowaan go'aamiyey qorshahan xasilinta xamar, waxaana dooda galabta ka qayb galaya oo marti iigu ah Maxamed Cabdi Yuusuf oo ah siyaasi Soomaalidu si weyn u taqaano, marna ra'iisul wasaare ka soo noqday dalka Soomaaliya xilliyadii dowladihii ku meel gaarka. wuxuu qadka telefoonka uga jira magaalada Nijmegen ee dalkaasi Holland. Korneel Axmed Warsame Xaashi oo ka mid ah ciidamadii xoogga dalka Soomaaliya waxa uu la fadhiyaa stuudiyaha BBC-da ee magaalada tan London. sidoo kale waxaa barnaamijka ka qayb qaadanaya Professor Axmed Muumin Warfaa oo ka soo shaqeeyey howlihii Soomaaliya ee qaramada midoobay ee UNISOM, gaar ahaan ergooyinka kana qayb qaatay arrimihii dib u heshiisiinta magaalada Ohio ee waddankaasi Mareykanka ayuu qadka telefoonka uga jira. waxaa kaloo stuudiyaha BBC-da London ila fadhiya xildhibaan Maxamed Amiin Sheekh oo ah senator ka tirsan aqalka sare ee baarlamaanka Soomaaliya, ahna gudoomiyaha guddiga difaaca iyo amniga. aad iyo aad baad u mahadsantihiin. ku soo dhowaada barnaamijka. waan idinkaga mahad celinaynaa sida sharafta leh aad u ogolaateen inaad nagala qayb qaadataan. inta aynan barnaamijka u gudo gelin dhegaystayaal, sidoo kale qayb baad ka tihiin barnaamijka oo codadka ay noo soo duubteen iyo fariimaha Facebookaba. sidoo kale halkan ayaa idinkaga baahin doonaa oo barnaamijka qayb ayaad ka tihiin. inta aanse barnaamijka aynan u gudo gelin, aan ku hormaro warbixintan oo wariyaha BBC-da Axmed Cabdinuur uu ku furayo barnaamijka, taasi oo ku saabsan arrimaha xasilinta ammaanka ee magaalada Muqdisho iyo heerarka ay soo martay. markii ay dhacday dowladdii kacaanka ee Soomaaliya horraantii sannadkii 1991 waxaa markiiba joogsaday dhammaan adeegyadii dadweynaha oo dowladda oo keliya ay gacanta ku hayn jirtay, sida biyaha, korontada, shidaalka, caafimaadka, waxbarashada, bangiyada, nabadgelyada iyo wixii kale ee dadku u baahnaa oo dhan. muddo kadib markii ay caddaatay in aanay dowlad shaqaynaysaa iman doonin, dadku waxay bilaabeen inay iskood wax uga qabtaan adeegyada lagama maarmaanka ah, sida inay ceelal ka qotaan deegaanadooda, matooro dabka dhaliya soo iibsadaan iyo wixii la mida. laakiin arrinta maare loo waayey waa nabadgelyada, gaar ahaan caasimadda dalka ee Muqdisho. markii dowladdu burburtay waxaa gacanta dadweynaha galay hubkii Soomaaliya soo iibsan jirtay 30 sano ee wakhtigaas ka horreeyey. dad badan ayaana ku dhintay intii ay barbaranayeen isticmaalka noocyada hubka fudud iyo kan culus intaba. dadku waxay hubka u qaateen ujeeddooyin kala duwan. qaar waxay doonayeen inay naftooda iyo maalkooda ku ilaashadaan,
qaar inay ku shaqaystaan oo kaalintii ciidamada ay buuxiyaan, kuwo kalena inay faldembiyeed ku galaan oo dadka ku dhacaan maadaama sharcigii iyo kala dambayntii meesha ka baxeen. 26 sane la soo dhaafay waxaa Soomaaliya soo maray maamullo ku meel gaar ah ilaa laga soo gaaray dowladda rasmiga ah ee haatan jirta iyo tii ka horreysay ee looga baxay ku meel gaarkii. intaas oo maamul mid walba waxaa muhiimadda koowaad u ahayd soo celinta amarka iyo kala dambaynta ama sugidda ammaanka caasimadda Muqdisho, waxaana mar walba lagu dhawaaqi jiray howlgallo hubka dhigis iyo soo celin nabadgelyada magaalada. laakiin mid walba markii dhimasho iyo dhaawac badan lagala kulmay ayaa tartiib looga aamusay. iskudaygii ugu weynaa waxaa sameeyey ciidankii Maraykanku horkacayay ee horraantii 90-meeyadii Muqdisho soo galay, laakiin markii dhiig badani ku daatay labada dhinacba ayay dalka isaga baxeen. waxaa ku xigay ciidamada Itoobiya oo magaalada qabsaday sannadkii 2006. hubka dhigis ayay ku dhaqaaqeen, laakiin khasaare badan kadib iyaguna harcad ayay ka huleeleen. haatan dowladda Soomaaliya waxay mar kale isku dayeysaa inay hubka dhigis iyo nabadgelyo sugid ka samayso magaalada. hase yeeshee waxaa soo baxaya dhaliilo iyo doodo ku saabsan qaabka howlgalkan loo fulinayo. marka xaggee salaadu iska qabsan la'dahay? nabadgelyada Muqdisho waxay ugu roonayd wakhtigii maxkamadaha islaamiga ah, taasoo la sheego inay ugu wacnayd kalsooni ay dadku ku qabeen xukunkooda shareecada islaamka ku dhisnaa. marka haatan ma la heli karaa qaab isticmaalka hubka looga maarmo iyadoo aan la isdilin? waxaan rajaynayaa in barnaamijka doodda uu galabta su'aashaas ka jawaabi doono. axmed cabdinuur aad iyo aad baad u mahadsan tahay. su-aashaasna waa midda halkan aynu maanta ama galabta u fadhinno. waa yahay haddaba howlgalkan xasilinta Muqdisho oo galay asbuuciisii 3aad waxaa lagu qabtay hub, waxaa la xirxiray dad tuhun ahaan loo qabtay oo xitaa saraakiil military ay ku jiraan. waxaa soo baxaya warar sheegaya in ciidamadii sugayay amniga oo markii hore qorsheynayay in ay hubka ka dhigaan ciidamo kale oo dowladda ka wada tirsan ay markaasi isku dhac uu dhex maray oo khasaara uu ka dhashay oo dhaawac iyo dhimashaba ay dhacday. waa tahay haddaba aan ku bilaabo korneel axmed warsame xaashi oo stuudiyaha London ila fadhiya, maadaama aad horay ciidan u soo hayd oo khibrad badan aad u leedahay howlgaladan oo kale, sidee wax u socdaan? aad iyo aad baad u mahadsan tahay Mawlid iyo martidaba. waxa weeyaan Mawlidow, anigu ciidankii hore ee militariga ee Soomaaliya ayaan ahaa. run ahaantii dal nabadan ayaana ka ah markii hore oo nabadgelyadu ay ka jirto, kala dambaynna leh. laakiin hadda sidii ay u soo baxeen dagaalkan ku salaysan qabaa'ilka oo kala qoqoban, waxaad moodaa labada meelood oo hadda dagaalkaas uu ka socdo in wax badan u dhexeeya. fakar inaan ku darsado un mooyaane, laakiin ma oran karo kuma kumbartaarin karo macnihii dagaalkii hore dowladdii hore sida ay ciidamadeedu ahaayeen iyo ciidanka hadda jira siduu yahay baa waxa u dhexeeya wax weyn farqiya. laakiin waxaan ka hadli karaa dagaaladii badnaa iyo hubka dhigistii badneed oo hadda noo soo faalayseen oo aad iyo aad uga soo hadasheen siday u dhaceen iyo qaabkay u dhaceen. Soomaalidu waxa weeyaan hubka inay iska dhigto horta waa wax aad iyo aad u wanaagsan oo nabadgelyada iyo dowladnimada ku jirta. laakiin waxaad moodaa xogaa in dadkii weli uu shaki kala qabo oo ummadii ay kala shakisan tahay. markasta oo hub dhigis la soo hadal qaadana waxaa lagu bilaabaa magaalada Muqdisho iyadoon la aadin meelaha kaleeto ama dalka kale. waxaa la rabaa marka dadkii waxay qaateen tuhun gaar ah oo leeyihiin dadka reer Muqdisho haddii hubka la idinka dhigo dad kale ayaa la idin gacana laabaya. macna nuucaasa meesha ku jira baan isleeyahay. laakiin dowladnimadu aad bay ugu fiican tahay in hubka la dhigo. waa yahay aad iyo aad baad u mahadsantahay Colonel Axmed. arrimahaasi dabcan si weyn ayaan uga doodi doonaa. waxaan jeclahay inaan u wareego Professor Axmed Warfaa ee waddanka Maraykanka ayaad joogtaa. haddana waxaan filayaa war badan kuguma seegana dadaalada dowladdu oo ay wado ee sugidda ammaanka iyo hubka dhigista dhinacyada ay u aragto inay carqalad ku noqon karaan amniga. ma aaminsan tahay intani ay tahay tallaabadii saxanayd ee loo baahnaa inay dowladdu bilowday? marka hore howlwadeennada BBC waan salaamay. khiyaarta meelo kala duwan uga jirta muxuu ahay dood wadaagana waan salaamay. marka labaad muxuu ahay dowladdu siday u qorayso qoritaanka waa sax in nabadda lagu soo dabaalo Muqdisho, laakiin erayga la yidhaah hubka dhigid iyo xasilinta Muqdisho hala kala saaro una fiirsada erayada. sababtoo sidoo Axmed Cabdinuur u sheegay
dadku saddexdii ujeeddo ay u qaateen hubka weli sidii u taagan yihiin meel kastay joogaan Soomaaliya marka waxaa la rabaa markaad hubka dhigayso saddex shay waa loo baahan yahay horta marka hore in dadka loo sameeyo wacyigelin sababta loo dhigaa hubka marka labaadna faa'iidada ku jirto marka saddexaadna hubkan gacanta uu ku dambeyn doono waa in la qeexo horta marka hore marka ku xigtana waa in dadka hubka laga dhigaa dhaqan celin loo sameeyo marka ku xigtana waa in dadkii noloshoodii kale hubka u qaateen la maareeyo bedelkeed la keeno laakiin hub la iska dhigo haddaad maqasho iyo muxuu ahay hubka oo muxuu ahay xasilin haddii la yidhaahdo laba eray oo aan shaqo isku lahayn qoraalka oo aan shaqo isku lahayn fahamka waaye marka sida dawladda hadda u qorayso oo ah qofkii qoray wato oo suuqa la maraa oo burcadayna oo ciidamadii shaqaday qaban lahaayeen isagoo qabsanaa oo habeenkii wax ku dilaa maalintii wax ku dhaca in la xakameeyo waa fiican tahay marka anu ayaan dhawr qoraal aan ka sameeyey hubka dhigidii aan la isticmaalin soo jeediyey sababtoo ah si qofka hub looga dhigo ama waa in isagoo wata laga dhigo ama waa in garaashka uu ku kaydsada looga daba tago ama waa in bakhaarka ugu jiro ama gurigiis waa in la galo hubka dhigid waa wax weyn oo mashruuc weyn oo jamciyadda qurumaha ka dhaxaysa ayba muxuu ahay hawsha ku wada oo adduunka ku kala maarayso waaye waxaa loo baahan yahay marka hubka dhigis caam ah waa in uu ka horeeyaa dib u heshiisiin labo marka labaadna waxa waaye waa in dalka si caam ah muxuu ahay hubka dhigis ay uga bilaabato ama qori ha la qaado ama toori ha la qaado ama bustoolo ha la qaado ama taangi ha la qaado sababtoo ah hubkii siduu dadka ugu galay oo weli u jira cid ka qaadayna ma laha marka waxaan qabaa aniga dib u heshiisiin inay ka horeyso hubka dhigidda xakamaynta iyo nabad kusoo dabaalidda xamar waa si fiican u dhawaaqaysaa inay shaqaynaysana waa ilata waayahay aad iyo aad baad u mahadsan tahay professor warfa sidaasi qadka ugu jir waa kugu soo laaban doonaa waxaan jeclahay inaan u wareego dalka Holland maxamed cabdi yuusuf rugacdaa baa tahay xildhibaan ayaad ahayd muqdisho tan iyo ilaa iyo burburkii cidna kaagama badnaa arrinta nolosha iyo duruufaha xaaladda magaalada nolosheeda marna way kacaysay oo marna way kufaysay bal marka wax hore waxaan ku weydiiyey ogaalka ma tahay arrintan arrin ku habboon xilligeedii in arrintan dowladdu ay tallaabadani qaado inta aad og tahayse arrintan ma arrin ku kooban baa muqdisho mise waa meelo kale ayaa jira qorshaha dowladda ah intaad og tahay adugu bismillaahi raxmaani raxiim marka ugu horeysa dhammaan wariyaasha b b c da iyo dadweynaha kale ay dhegeysanaya iyo saaxiibada kale waa salaamahayaa salaan ka bacdi waxaa weeye arrinta laga hadlaya arrin aada muhiim ah weeye meelo badanna in laga eego u baahan weeye waana mabda' suuban oo wanaagsan weeye waxa weeye marka muqdisho waa magaalo madaxdii qaranka Soomaaliya sideedana Soomaaliya waa qof jirkiisa isku dhagan yahay oo dhan weeye waxaana jirkaas uu ku shaqeeyaa ama ku meel mara ama lagu tusmeeyaa waxa weeye waa madaxa weeye maskaxda baa ku taalla madaxa indhihii wax lagu arkahayee baa ku yaalla dhegihii wax lagu maqlahayee baa ku yaalla sidaa daraaddeed qofku hadduu madaxa ka jiran yahay waa qof waalan wuxuu daaweyn karana ma jirto haddii aan marka muqdisho la daaweyn oon cudurka laga saarin oo aan lagu soo celin traditionally si ilaahay u abuuray ama loogu dhaqmi jiray Soomaali isku imaanaysay aan lagu soo celin amnigeeda iyo jirkeeda la adkayn dalka intiisa kale wuxuu noqonayaa waxaan jirin oo kale noqonaya sidaa daraaddeed xamar waa xaruntii midnimada qaranka Soomaaliyeed waa meesha xudunta ummadda Soomaaliyeed ku dugan tahay justification loo sameeyana ma qabo haddii dowladda ay garatay inay hubka ka dhigto xamar waxa jooga oo dhibaato ay ku qabaan dadka Soomaalida oo xamar jooga dhibka ugu weyn dadka xamar jooga ku dhacay intii dowladda dhaxay burburtay waa magaalada habeen kaliya nabad aan ku soo hoyeen oo maalin walba dadkeenay ku dhimanayaan oo laamiga dhiigooda ku daadanay aad maraysid oo lagu qosqoslayo dal laga lahayn waxaana sameynaya waa dad yar oo kooban oo wajiyaal badan ku shaqeynaya oo magacyaal badan la baxay ama qarsoodi ku shaqeynaya weeye waxaana biitima u noqonaya waa dadka weeye shacbiga oo meesha ku nool masaakiinta Soomaalida weeye oo u baahan nabad iyo ammaan inay ku noolaadaan sidaa daraaddeed xawar haddii la saxo amnigeeda la ilaaliyo oo ma garanaysaa iskuulatada gacanta lagu dhigo waxaan aaminsanahay dalka intiisa kale in loo gudbi karo oo dibadna laga raysan karo laakiin xawar oo jiran meel noo fogeeyaan kartaa ma jirto
sidaa daraaddeed waxaa jira waxyaalo isdiidan baa jira, iska horimaad cadaawad ku dhisan baa jira. qof nabad doonaya oo midnimad doonaya oo qarannimad doonaya oo amni doonaya oo dalkiisa iyo wanaaggiisa doonaya iyo mid wax ka soo horjeeda doonaya shakhsi ah oo mataqaanaa wejiyaal badan leh ama isticmaar ku xiraado ama dantii shakhsiga ku xiraato ayaa diidan waxyaalaha qaarkood. marka waxaan la diidi karin waxa weeye in magaalo madaxdii la xasiliyo oo salka loo dhigo si qarankii u noolaado. sababtu waxa weeye haddaan saldhigu istaagin qaranka dalka intiisa kale wuxuu yahay ma jirayso. sidaa daraaddeed anigu waa soo dhaweynaya arrinta iyada qaabka loo fulinaya laakiin waa inay noqotaa. waayahay waan jeclay inaan siiyo xildhibaanka ama senatarka inaan siiyaan jeclahay iyo martida kale, laakiin waxaan rabaa inaan kugu celiya hal su'aal. maxamed cabdi yuusuf, 26 sano ayaynu u soo joognay arrintan oo aynu markhaati u ahayn dadaaladan iyo waxaan hadda aad sheegtay oo dhan. adigu maxaad u aragtaa marka adigu xal ilayn hadda dad badan dib heshiisiinta laga hadlayo waxay leeyihiin xamar ayaa u baahanba qudheeda dib heshiisiin oo ay tahay inay ka horeyso hubkan iyo ammaankan iyo waxaan la sugayo. marka adigu xalka aad u aragtid iyo sida aad leedahay waxaana way ku noqon kartaa wax meel mara bal inala wadaag. horta waxaan rabaa inaan kuu sheego dadka Soomaaliya colaad isuma hayaan, shacbiga Soomaaliya colaad isuma hayaan. waxa weeye niman siyaasiyiin oo danaystayaala oo shisheeye u shaqeeya waxa dhibaatada wada weey. qofka Soomaaliga magaalo kastoo Soomaaliya ayuu tegi karaa oo mari karaa meel kastoo tegi karaa. laakiin waxa weeye dadka dhahaya dib heshiin waa la sameyn karaa, laakiin waa loo baahan yahay dadka lagu wacyigeliyo Soomaalinimada iyo qarannimada iyo walaaltinimada laga shaqeeyo wax loo baahan yahay weey. laakiin ma aaminsani maanta dadka Soomaaliya inay sidii sulaayeen inay u taagantahay qadiyadooda u taagantahay. waayahay waa mahadsantahay. ha dhamaystiro maxamed cabdi. sidaa daraaddeed waxaan anigu aaminsanahay in ma garanaysaa haddii awood iyo karti dawladda u leedahay inay magaalada xamal xasiliso oo sideedii ku soo celiso ay heli karto inay fuliso waddo kasta ha u martee ayaan anigu soo jeedinayaa. waxaan aaminsanahay haddii xamar hagaagto Soomaaliya inay hagaagayso. waayahay tabar ayaa soo hadal qaaday maxamed cabdi yuusuf soo hadal qaaday tabar. dowladdii waxaynu isku daynay inaan helno golaha xukuumadda ama golaha fulinta ee wasiirada, laakiin waynoo suurtagali weyday. marka waxaynu la fadhiya senator ka tirsan aqalka sare ee baarlamaanka maxamed amiin arrinta uu hadal carabaabay maxamed cabdi yuusuf ee tabarteedii iyo siyaasaddeedii dowladdu ma haysa ay ku fulin lahayd hawshan amniga muqdisho. aad iyo aad mahadsantaha mawlid, waa ku salaamayaa adiga iyo asxaabtaada iyo dhegeystayaasha iyo martidaada igala qaybgalaysa barnaamijka. waxaan rabaa marka hore inaan idhaahno arrinta ku saabsan amniga ma aha in la siyaasadeeyo, ha ahaato shacabka, ha ahaato dowladda, ha ahaato dhan walba. marka amniga inuu yahay muhiimadda koowaad waxaan u malaynaa inaan la isoo khilaafsanayn. magaalada muqdisho waxay ka mid tahay meelaha ugu baahida badan ee baahi amni ay ka jirto. dowladda xukuumadda cusub waxa ay keento qorshe la yidhahdo xasilinta dalka gaar ahaan magaalada muqdisho. marka waxaan isleeyahay sida uu professor Rafaa uu sheegay, arrinta xasilinta iyo amniga iyo hubka dhigista waxaa u dhexeeya farqi weyn. runtii waxaan qabaa in dowladdu marka horeba xukuumadda barnaamijkeeda inay saarto xooga in la xasiliyo magaalada muqdisho. markii amni dadka ay dareemaan maba jirta baahi qof uu qoro u qaato. baahida dagaalka sugaya kabacdi dadka hub fara badan ayaa gacmahooda galay. ma aha hogaamiye kooxyadii oo keliya, laakiin dad shacaba oo hanti haysto oo maanta magaalada muqdisho meel kasta oo ganacsi ka jira, hotel ha ahaato, ganacsi kale ha ahaato, qoray ayaa lagu wardiya. taasna waxaa keenta duruuf ayaan dhihi karaa. marka dadka Soomaalidu uma baahna umana habboona inay qora haystaan runtii, laakiin duruuf keenta ayaa jirta. marka waxaan aniga aaminsanahay in tan ugu muhiimsan ay tahay in aad marka hore loo saaro xooga in la xasiliyo magaalada muqdisho. dowladdana kabacdi qorshaha u yimaada hubka dhigista sida asxaabta saaxiibada ayaan aad ugu raacsanahay. marka la fiiriyo waa cilmi gooni ah. marka la fiiriyo hubka dhigista caalamka, marka fiiriyo UN-ka qaybdan uu leeyahay qorshe loo maro iyo way loo maro ayuu leeyahay. wax ka baxsan sida adduunka ula dhiilgareeyo wadamo far badan oo dagaal sokeeye ka dhacaya jira way ka gedisan. ma aha anaga inaan runtii inaan u marna u malaynaya inay suurtagal tahay. cabashada magaalada muqdisho ka taagan waxay tahay yaa hubka laga qaadaya. waxaa ogtahay dad fara badan dadka hubka rasmiga magaalada muqdisho waxa haysta maanta waa dad ka tirsan dowladda, ciidan ha ahaadeen iyo madax ha ahaadeen. ganacsatada iyo shacabka waxa tirada ay haystaan runtii aad ayay kooban tahay. magaalada muqdisho waxaan joognaa iyadoo
technical lagu maro hadda aad ay u yar tahay cid technical wadato marka laga reebo taliyayaasha ciidamada oo gobolada isaga goosho runtii khatar badan soo maray inay kusoo galaan marka qaar magaalada iyo mas-uuliyiinta qaar oo hal iyo laba wato marka inta kale waxay wataan hub ay iyaga ay isku ilaaliyaan marka aniga waxaan qabaa su-aal weyn ah taagan oo runtii aad dad fara badan inagana soo weydiiyeen qorshahaas hubka maanta haddii la qaadana sidee loo qaadaa yaa qaadayo ciidamada qaadaya maxayn ciidamo isku dhaf ayaa la yidhaahday waxaan ka warhaynaa in waddankeena uusan lahayn oo lagu eedeeya maalin walba cunaqbateynta in laga qaado marka laleeyahay maba haystaan meel hubka lagu keediyo infrastructure uma dhisna qorigan haddii la qaado yaa qaaday intuu geynaa waxaa taas soo dheer dad fara badan oo Soomaaliya hubka way iibsadeen hubkii qarash oo kale intaas kale ma la iskala wareegaya wadanka ma la maray processyada rasmiga ee la maray runtii culays fara badan ayaa arrintaas ka taagan waxaan aaminsanahay in oo si guud ay dawladdu habboon tahay in xoog la saaro in la xasiliyo magaalada Muqdisho lana kasbado shacabka ma baahna inay hub qaataan kasbashada ayaa soo hadal qaaday dawladda adiga ayaa hadda nagala jooga dawladdu ma samaysay wacyigelintii loo baahnaa oo ahayd in dadka laga dhaadhiciyo waxaana inay dan u yihiin waxaana ay tahay arrin guud oo Soomaaliyeed oo caasimadda xasilinteedii iyo amnigeedii uusan muhiim ay u tahay in hubka dadka ay iska dhigaan oo magaalada amnigeeda ku soo laaban karo arrintaasi dawladdu jihadaas ma qaaday mise way iska qaaday hawshiyo iyadoo aan wacyigelin samayno tashi samayno siyaasad aan isticmaalin ayay tallaabadii qaaday marka la fiiriyo dhinaca hubka dhigista ma qaadin dawladda laakiin arrinta xasilinta wax bay ka bilowday waana tan shacabka ay soo dhaweynayaan in xasilinta marka hore xoog la saaro ana aaminsanahay inay tahay tan saxda ah ka bacdi waxay u baahan tahay wacyigelin badan in hubka dhigista la sameeyo waxa aan laga maarmaan ah marka xukuumadda in ay qorshe cad ay keento qorshahaasna ay gole wasiirada ay u soo gudbiyaan labada gole ee dawladda lana ansixiyo hubka dhigista marka la sameynaayo ay noqoto mid way loo raacay ay tahay Soomaaliya oo dhan ayaa hubku yaala magaalada Muqdisho ugu badnaato waa in hal mar istiraatiijiyo guud dawladda oo hubka dhigista lagu sameynayo la sameeyo in cudurdaar sameeymayna hub si qaldan ay cid u wadato laakiin waxa muhiim ah waxa ka waraysaa من 2000 ilaa hadda waxaa jirta mas'uuliyiin badan oo Soomaaliyeed ka soo qabtay dawladda xilal kala duwan oo aan hadda haynin jaga marka la fiiriyo ragga shabaabka ee target gareysanaya madaxda Soomaaliya dhamaan target ay yihiin hadii aad tiraahdo cid waliba waan ka qaadaya ama guriga ugu tagasho meel kasta ugu tagtid amaankeeda runtii ma sugi kartid laakiin waxa aniga ila muhiimsan saxna ah in amniga la sugo in sida uga hadasheen warbixintiina dheereed oo laga soo bilaabo UNITAF ilaa la soo maro maxkamadii ilaa xukuumadii Ali Maxamed Geedi oo ra'iisul wasaaraha magaalada Muqdisho ka dhigista ka bilowday intaba sidii la rabo uma shaqeyneen waxa muhiim ah dadku in ay daacad ka noqdaan xataa maxkamadii oo ilaa kalsooni shacabka ka helay hubka aruuris oo sax kama sameynin maxaa yeelay marka hubka aruurinaysa wuxuu u baahan yahay qorshe dheer wuxuu u baahan yahay istiraatiijiyad fog waxaa si dheer oo Soomaaliya u soo dheer wadankan oo dagaal sokay ka dhaca waxa laga maarmaan ah in aan runtii Soomaalida ay u aragto in dantooda ay ku jirto inay hubka iska aruuriyaan waana soo jeedinaya in shacabka magaalada Muqdisho ay xasilinta magaalada ay kala shaqeeyaan xukuumadda ay soo dhaweeyaan arrinta hubka dhigistana waxa aan jeclaan lahaa in ay maaragtay u baahan tahay shaqo dheeraada u baahan tahay in la waafajiyo qorshayaasha caalamiga ah ee loo raaca hubka dhigista oo aysan iska naqan wax caadifo iyo salfudeed waa maasan tahay waad maqlaysay Cornele xildhibaanka iyo Maxamed Cabdi Yuusuf iyo professorka labadaba saddexdood maqlaysay maxaa adiga ku muuqda marka aad iyo aad baad u mahadsantihiin horta si fiican bay uga hadleen runaantii dadkuna waa isku fakar dhow yahay fakarkuna aad buu isku saaran yahay anigu marka horena waan ku bilaaba waxaan ku yidhi dowladdan horta waa dowladdii ugu taageerada badnayd ee shacabku ay taageeraan waxa lagu magacaabaa in la yidhahdo dowladda shacabka oo shacabkaa doortay maantana waxaad moodaa daldalool badan markii hubkaa la soo qaaday dowladda inuu soo gaaray sababtu u soo gaarayana waa waxaad dareemi karto hubkan la qaadaya siduu professorku sheegay warfaa hubka la qaadayo horta meesha la dhigaya waa in la helaa kow laakiin wajahada ay hadda dowladdu u wajahday oo tiri hubbaan qaadaya waxa uga wanaagsanaan lahayd dowladdu inay tiraahdo hubka wixii aan ahayn mas-uuliyiin gacanteed ku jirin baan qaadaynaa macnaha waxa weeyaan waxaan mas-uuliyiin gacanteed ku jirin waxa weeye dadka ganacsatada hubkooda in la yidhahdo meel dhigta dadka mas-uuliyiinta la yidhahdo hubkii naxariista dadka muxuu ahayey dadka mutakarka ah oo lagu aamini karo hubka markaas waxaa banaanka u soo baxaysa dadkii tuugada ahaa ama dadkii aan ka sharciyaysnayn oo hubkan sharci darrada ku haysto dadka ku leynayay ayaa banaanka ugu soo bixi lahaa marka hore in kuwaas la qabto ayaa ka wanaagsanaan lahayd laakiin haddii la yidhahdo hubdhigis safaynahan maraynaa waxa weeyaan waa wax aan suuragelayn run ahaantii
waa wax wanaagsan oo way wanaagsan tahay laakiin si ku suura galaysaa way waa wanaagsan tahay in hubka la dhigo waa wanaagsan tahay dalka inuu nabad helo mar walbana waa lagu celcelinaya dadku waxay ku celcelinayaan in ay wanaagsan tahay nabad la helo laakiin see loo helaya waxa weeyaan maamul goboleedya ka jira dalka waad ogtihiin dawlad dhexe oo Soomaaliyeed oo dadku dhan isku raacsan yahay oo muxuu ahay leeyahay wala wada taageeraya meesha joogan meel qabiil walba waxa uu xareysan dawlad oo madaxweyne iyo wasiir iyo xildhibaan meel ku haysta hub iyo ciidanna ku haysta welina dadkii dib u heshiisiin looma sameyn run ahaantii oo waxa weeyaan iyada ruuxeedii baan weli aan la fahamsanayn ba sida dib u heshiisiin loogu sameynayo waxaad garan kartaa halkan 10 madaxweyne Manuel Balyeerinaya ayaga dhexdoodii iyo dawladii dhexe isqabsanaya maalin walba hubkan marka hadii la yiraahdo dadkan xamar jooga waxay fiirsanayaan gobolada kaleeto ama dadka kaleeto oo maamulada haysto hubka haystay fiirsanayaan hadii anaga hubka yaga la qaado waxa imaanaysa in dad kale gacanta loo galiyo oo hubkaas anoo gacana banaan gacanaha loo banaynay marka aniga waxay la tahay istiraatiijiyada hadda lagu bilaabay hubka waxa ka horeysa sida professorku sheegayba in wacyigelin la sameeyo dadka mas'uuliyiinta ama ganacsatada ama mas'uuliyiintii hore oo hubka haysatana leeyahay hubka naxariis waayahay aad iyo aad baad u mahadsan tahay Cornel Axmed Warsame oo kugu soo laaban doono dhageystayaal halkan naga dhageysanaysaan waa BBC in London saacada Afrikada bari waxa ay tilmaamaysaa 5tii iyo barkii galabnimo hadaha iyo kale inta badan barnaamijka waxaan dib idin xusuusin doonaa in barnaamijka uu yahay barnaamijkii dooda Jimcaha ee waxay la tahay oo maanta aynu kaga hadlayno arrimaha ammaanka ee magaalada Muqdisho waayahay waxaan jeclahay markaa inaan u wareego professor Warfa professor waayahay waxa laga hadlay arinta ku saabsan kalsoonida iyo qaabka dawladdu ay u wajihi karto dadka oo dhani arintan kalsooni ma ku wada qabaan in ay dawladdu talaabadan ay qaado ma muuqata arin lagu wada kalsoon yahay maya ma muuqato waaba ana hadlayna waxa la yiri hubka dhigis waxa weeye inaad guri u gasho oo bakhaar u gasho oo garaash u gasho oo aad xuuraansato oo dadka dharcadka ah hubka soo sheega oo meesha lagu aasa sheega oo meesha lagu qariyo sheega oo midabka loo sameeyo soo sheega war waxa ka horeey isku dhan waa arrintan ka hadlayno laakiin hadii la yiri muxuu ahay xasilinta Muqdisho boqolkiiba boqol hal la qaato oo magaalada hal xasiliyo oo hubka la socdo hal joojiyo oo wadada la taagan yahay hal joojiyo oo tuuga iyo qofka ikhtiyaarka ah kala cadaadeen saasan ka hadlayna laakiin hubka dhigis eraga la yiraahdo dadku markaas ay bicirka ka tagaysaa arrintu maartay joojiyo eraga la yiraahdo hubka dhigis laakiin hal yiraahdo xasilinta caasimada hal yiraahdo kaloo laga hadlaa shasheeya imaado iyo shasheeya ku xiran iyo kanaytay kaasaytay iyo waxyaabaha oo shakhsiga iyo waxyaabaha caamka ah oo barasho u baahan oo duruus u baahan oo aqoon u baahan hal kala saaro waxaan qabaa aniga in muxuu ahay arrintii la xalliyo boqolkiiba la xasiliyo ilaa xamar boqolkiiba boqol laakiin muxuu ahay eraga la yiraahdo hubka dhigis ma dhawo sheekadiisu kalaana loo galaa waayahay maxamed cabdi yuusuf aan siinaya inuu arrintaas kaaga jawaabo professorku aad maqlaysaa maxamed maxay adiga kula tahay waxay la tahay marka ugu horeysa horta siyaasadda iyo wixii la qabanaya istiraatiijiyad tacticay leeyihiin waxa weeye istiraatiijiyadu waxa weeye Soomaaliya istiraatiijiyadu waxa weeye si qarankii loo soo celiyo waxa beesu ah qabaa'ilka hubaysan oo iska soo horjeeda hubka in laga dhigo way hadii kala dawlad awood loo ka dhalamayso sida daradeed marka wadadii loo mari lahaa iyo farsamadii loo mari lahaana gaar weeyo oo mataqaan looga shaqayn lahaa sida daradeed waxaana mas'uuliyadda loo saaray waxa weeye dawladda hadda jirta ka mas'uula oo hadda mataqaan ay ka kooban baarlamaanada golayaasha iyo madaxweynaha iyo xukuumadda oo beys oo saldhig u ah arrinta shaqada inay qabato hadday iyagu awoodda samayn karaan ama wax qabadkaas ay samayn karaan ayaga waajibkaas saaran yahay inay qabtaan laga doonaya haddii aysan qaban karin inay waxsan qaban karin waa qaban inay yiraahdaan meesha kuma jirto laakiin hadday qaban karaan oo yiraahdaan saasaanu qabanaynaa xaq bay u leeyihiin inay qabtaan justification loo sameeyo marka in hub la haysto oo ummadda isku gumaado oo qarannimada lagu hor istaago oo shisheeye qurri ka dambeeyaan dib socod iyo qabyaalad iyo wax daran oo anagu ognahay ma loo samayn karo justification waxa loo samayn karaa waxa weeye wixii qalada oo la samaynayo in la yiraahdo waxa meesha ma mari karaan sida daradeed farsamada iyo wax la qabanayo hay'adaha loo xilsaaray baa looga dambeynaya
maxamed cabdi yuusuf waa ku siinayaa cornele maxaa iska galay arrimahan magaalada muqdisho iyo amnigeeda iyo shisheeyaha iyo dadkaa soo hadal qaaday maxaa iska galay xaggee isaga xiran yihiin sheeyuhu waxa weeye dadka soomaaliya nabad aan ka doonaynin oo weligeen inaan isdille raba oo weligeen qabin aan ku qasnaan doonayo weeye oo diidan deganaansho iyo nabadgelyo dalkeena inay ka dhalato ayaa faragelin shisheeyo xoog la dalkeena ku jirta dad badan oo hadda u hadlaya inay daacad ka yihiin wanaag ka yihiin ayaan ogolayn mataqaana in la gaaro Soomaaliya nabad inay gaarto laakiin Soomaaliya iskaga ka dhigaya oo wadooyin kale kaaga soo raadinaya anigu xoogaal baan u ahay meeshaasaan haddeer ka imi intaasaan dhex joogay dadka Soomaaliya oo maanta colaad isuma qabaan runtii daawey waxa weeye waxa isku diraya waa shakhsiyaad danaystayaal oo kooban oo la yaqaan weey oo dad shakhsiyaad meelaha loo ordayo weey sabiradeed waxa kula hadlaya Cornel Ahmed Warsama kula hadlaya Ahmed Yusuf Horta waa nin odaya waa nin madax badan dawladda ka soo dhex shaqeeyay waa nin mas'uuliyad waa nin ilaa iyo waqti badan taariikh u leh Soomaaliya run ahaantii oo aad loo qadarinayo laakiin Maxamed Yusuf waxa ka dilan maamul goboleedyada jooga oo militariga leh oo aan dawladda Soomaaliya ka tirsanayn ciidamadoodii ay u habaysan yihiin meesha joogaan hadda magaalada gaalkacyo kale markaad ka soo qaado haddii la yiraahdo hubka laga dhigaya ciidamo waxaa jooga qabaa'il u samaysan oo meesha degan dagaalada la iskaga soo horjeeda xamar keligeed maxaa loogu naanaadaya maamul goboleedyada caasimadii baa la yiri caasimada waxaa la yiri qofkan hadduu madaxa ka jiran yahay ma bogsan karo marka waxaa la yiri caasimada ruuxeeda waxaa ku jira hadal baa ku jira caasimada ruuxeeda hadal ku jira horta caasimad Soomaaliya u taameeshi Soomaaliya waxa isku darsatay oo iyadu isku keensatay baa caasimad ku noqotay waa dawladii baa degan safaaradihii baa degan waa meesha wadanka mawlid caasimada u kaad caasimada waxa weeyaan qabaa'il hadda u degantay qabaa'il habay u degantay dawladdu waa run waa caasimadii waa la joogaa xildhibaanadii baa jooga laakiin wali lama aaminsana caasimada ruuxeeda waxay aaminsan tahay waxa la idin gacan xirayaa maamul goboleedyo hubaysan oo ciidamo iyo military leh ayaga waxa weeyaan maamul goboleedkan meesha jooga qabaa'il ciidamo u haystaan sooma dhacay dawladdu in taas qorshe ka leedahay oo ay tallaabo u qaadayso markay muqdisho ka gudubto meel kale ay wareegi karto maya ma dhici karto waxaysan u dhici karin marka horeba dawladdu waa inay ku dhawaaqdaa oo tiraahdaa waxaan ka qaadayaa hubka kone to kone ciidamada jooga oo dhan waxaan booliska ahayn oo gobol tuulooyinka ilaa hadda waxa weeyaan magaalooyin aan col lahayn baa jira oo fara badan oo aan cadaawad lahayn koonfur galbeed oo kale waa la oran karaa cadaawad bay leedahay kismaayo oo kale waa la oran karaa cadaawad bay leedahay gaara laakiin gobolladan dhexe iyo dadkan dhexe oo wadanka dhexe ku jooga ciidamada samaysanaya colaad aad taas u sii badan ma lahan ciidanku hadduusan difaaci karin gobollada iyo dadka iyo qabaa'ilka difaaci karin hubka lagama qaadin waa mahadsantaa Cornel senator maxamed amiin waad maqlaysaa maxamed cabdi yuusuf ra'iisul wasaarihii hore iyo Cornelka maxay adigu kula tahay markaa aad u mahadsantahay mawlid oo marka la fiirinayo arrinta amniga magaalada muqdisho runtii aad iyo aad ayaa runtii culays uga jira wax kasta oo dadaala waana ku bilaabay waxa muhiim ah in waxyaabaha security-ga la xiriiray iyo nabadgelyada magaalada muqdisho iyo xasilinteeda inaan maaragtay la siyaasadeynin oo shacabkuna ay taageeraan wixii arrintaas la xiriira dowladuna iyada nafteeda aysan siyaasadeynin qorshaheeda xasilinta iyo hubka dhigista waxa lamid ah arrinta hubka dhigista sida aan hore u sheegay runtii waxaan ka aaminsanahay xukuumadana barnaamijka dhammaystiran uma soo gudbin labada gole oo lagama ansixin oo looma ma aha mid ku beesgaraysan in oo runtii si la yaqaano oo runtii wadamo fara badan oo dagaalo sokeeya ka dhaceen su'aal baan ku weydiinaya professorka iyo maxamed cabdi yuusuf labada waxay leeyihiin yaan la dhihin hubka dhigis waa arrin amni sugid baa laleeyahay taa dawladdu ma qabta adiga dawladdii baad nagala joogtaa maxamed aniga dawladda waxaan ka tirsanahay aqalka sare sharci dejinta waxaan ahay gudoomiyaha guddiga difaaca iyo amniga ma jiro qorsho dhammaystiran inoo ma hubka dhigis ba mise waa amni marka anaga waxa aan aaminsanahay ay tahayna inay noqoto xasilinta magaalada muqdisho taas ayaa sahal la isku waafaqsan yahay waxay u baahan tahay dhammaystir isu arrinta kale u baahan hubka dhigista yacni waxay og tahay hadda Soomaaliya muddo dheer waxaad shaqaashnay cunaqabateen hub waxyaabana lagu haysto waxaa ka mid ah inaanan lahayn mekanismka ay ku shaqayn lahaayeen sida ay u shaqeeyaan ciidamada rasmiga ah oo maanta askariga marka uu shaqadiisa dhamaato ma jiro xarun oo qorigiisa ku tiirsada uu ka soo tago xaafadiisa ayuu la aadaa ma lahan is-aaminaadii weli meeshii la rabo ma ahan infrastructure wixii u dhisna loo baahnaay oo bayska ay ku shaqayn lahaayeen ma lahan marka maanta qora la qaado qoriga yaa qaaday ciidamo isku dhafa ayaa la sameeyey ciidamo
nuuca oo la yaqaano xataa ma ahan ciidamada marka hubkaas la qaado ciddi qaaday meesha uu yaallo meesha la geynayo meesha uu ku dambeyn doono qorshahaasoo dhan waa qorshe tixan oo loo baahan yahay inuu jiro runtii waxaan aniga aaminsanahay magaalada muqdisho u baahan tahay hubka dhigista laakiin xilligeeda mala joogo waa in la xasiliyaa xasilinta ka horeysa leedahay waa yahay waa mahadsantahay BBC-du maanta waxay wareysatay mid ka mid ah gudoomiyaasha degmooyinka magaalada muqdisho oo ka hadlaya arrintani sababta ay uga biyadiidsan yihiin ay fiican tahay hubka dhigis in la sameeyo laakiin hubka waxaa fiican in cadowga horta laga dhigo awoodda cadowga la wiiqo awoodda cadowga markii la wiiqo kabacdi tuugsaqajaanka iyo burcadda hubka laga dhigo laakiin hub laga bilaabayo dadkii cadowgu taargadaraynayay oo ama ciidamadii ama siyaasiyiintii aniga taas sax ila maaha waad maqlay waa Axmed Daaci wuxuu ahaa gudoomiyaha degmada Wadajir Masaaki ayaa BBC-da wareysatay professor Warfaa baan siinaya waad maqlaysaa arrintaasi waxa la leeyahay ama ganacsato ha ahaato ama siyaasiyiin ha ahaato dadkani amnigoodii yaa sugaya haddii hubka laga qaado waad maqlaysaa marka arrintaasi maxaad ka leedahay adigu professor Warfaa aniga mar horaan sheegay inaan ku noqdo ma waxaan wax badan aan darasnay aniga muxuu ahay Allah u naxariistay markii uu madaxweyne muxuu ahay Maxamed Siyaad Barre meesha ka baxay 92 degmo ka tagay 80 degmana waan tagay aniga taangiyadii iyo shilkihii iyo muxuu ahay hubkii cuslaayo dhan hoobiyaasha meeshan ku soo arkay maar wax soo noqday oo dawladda gacanteeda soo galayna male walaalayaal waxaan ka hadlayno waa wax yar maartay anagu sibaan wax u qornaa sibaan wax u dejinaa sibaan dadku wax u sheegnaa sibaan wax u fikirnaa sibaan wax u baranay sibaan wax u barbaarnay waxaan yaa la isku celcelinay meesha waxa la yiraahdo xasilinta caasimadda ergaas hal isticmaalo hadaad hubka dhigid isticmaasho meel kale aad u socotid laakiin anagu ma isticmaalne dawladii baa leh hubka dhigeena professor waxaan ka wada guud ahaan ka wada dadku waa inay u fahmaan xasilinta caasimadda waa magac la yaqaan oo qofka burcadka ka tuuga kan aqoonsi lahayn kan hubka iskaga dhaxwato kan wax ku dhaca kan maalintii wadada istaaga kan isbaal yaani xasilinta sidaas loo fahmaa laakiin hubka dhigis waxa waa sida uu u sheegay oday Axmed Daaci in guryaha la tago oo shilkaha la soo qaado oo taangiga la soo qaado oo hoobiyaha la soo qaado oo bustoolada la soo qaado oo toorida la soo qaado hubka dhigida la yiraahdo oo faramarnaata macnaha laakiin waxa la rabaa taas waxa la rabaa siyaasad guud ay leedahay wacyigelin ay leedahay muxuu ahay dib u heshiisiin ay leedahay muxuu ahay ololay leedahay waayahay waa kugu soo laaban doonaa professor Warfaa sidaas igu jir dhageystayaasha BBC-da ayaa barnaamijka qayb ka ilaa iyo raadiyaha dad badan baa nagala socda dhinaca kale Facebook live-ka ilaa 1200 qof baa toos hadda inoo daawanaya barnaamijku wuxuu gaaray ilaa 200,000 oo kale waxaan jeclahay marka inaan bal u wareego aan fursad siiyo dhageystayaasha barnaamijka qayb ka yihiin codadkooda ayay noo duubeen dhageysta fariintan ka soo duubay Tanzania ayaan u wareegayaa السلام عليكم ورحمة الله وبركاته والسلام يا دمان بعد BBC شغالها برامج الجماعة انتبه وحسين فرح أوجو تنزانيا يعني أرنته كديست أرته كديست وعلى مارمان أدون كمير ولا ماشي وأمان كبدن وعاصمة إدتك سكول حجران أجنبي إدتك مركز ودن كولا شباب runtii xamar markaan soo jeesto xamar waxay u kala xiran tahay beelo oo Soomaalida dhan way ogyihiin qaabka ay u kala xirteen marka waxaan qabaa aniga caasimadda waxay noqotaba awood ma isafgarad in laga saaro hubka oo awoodii waxay ahaataba xataa awood lagu saaro waan amaanaya taliyaha xilligan nabad sugidda iyo xilligii hore uu ahaa nabad sugidda qaabka uu u bilaabay oo waliba isku dayo inuu ku xakameeyo oo ka xakameeyo hubka xamar waa salaamintiin dhamaan BBC hadalay mahadsanidin waayahay waxaan jeclahay marka inaan sidoo kale siiyo fursad dhageysto kale oo asna fariin ka soo duubay magaalada Boorame السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مقعي عبد الوهاب ضيف شيخ سامع عبد الجيسي دجن حرمت الجبل كأوضل مقالة بورما أنا جوحي إلى هاي مقالة مقدشو إلا قد بلابي إن هبك لقى الرياضات كهيستا إن يسن ما أنت كهبونين أو أهين مالنتي xoog dadka lagaga qaadi lahaa laakiin dawladda federaalka waxa u haboon oo u wanaagsan oo garteeda noqonaysa markay caasimadda sugto ay dadkan amnigooga sugto ee ay ka yeesho dad meel la isku halayn karo Muqdisho laakiin
marka dadka hubka laga qaado yaa ka waardiyeynaya cadowga soo weeraray dowladdu xil ha iska saarto oo horta ha joojiso weerarada maalin walba dadka lagu dilayo magaalada muqdisho dadku iyaga iska soo xarayn doono hubkooda marka dowladdu aad u fiirsato wanaagsantiin BBC Soomaali waayahay aad bay maasii yihiin dhageystayaasha BBC da waxaan jeclahay inaan u wareego Cornel Axmed Xaashi Cornel magaalada muqdisho inta badan hadda hawsha dowladdu ay ka bilowday dowladdii baa degan waxaa lagu tirinayaa 26 sano inay qayb inta badan lagu tirinayo siyaasadda iyo xal la'aanta Soomaaliya inay muqdisho qaybta ugu weyn ay leedahay haddii dowladda ay degan tahay dadka muqdisho soo muhiim ah inay bilaabaan ayagoo ay u bilaabaan Soomaalida hubka dhigistii iyo amnigii aad iyo aad waa sax inay bilaabaan xaq bay u leeyihiin laakiin goormay bilaabayaan way waxa weeyaan waa kala horeysa horta hub dhigista iyo hadda sida la isugu raacay iyo xasilinta laba laga dhigay golaha halkaas aan sax wax yar golaha wasiirada oo ra'iisul wasaaruhu shir gudoominayay oo golaha wasiirada ay fadhiyeen madaxweynuhu ansixiyay waxa la isku raacay amniga in la sugo magaalada muqdisho hubka dhigisana la sameeyo waa kelmadaas hub dhigista waan ka soo gudubnay taas waxa weeyaan hub dhigistu si kalaan ku dhawaaqideeda ba khaldanba hubka dhigis marka la yiraahdo waayo hubka dhigista nimaadan ammaankiisina sugi karin habeen walbana gurigiisa lagu soo golayo la dilayo hubkan ka dhigaya ninna ma yeelayo laakiin ansixinta waxa ka horeysa wacyigelin kow horta in la bilaabo oo la yiraahdo dadka wax garadka hubka su'aasheeda dadka muqdisho inay yani maadaama caasimadii ay joogaan in ayagoo u horseedaan Soomaalida kale sheegtay oo u boqoryaha haysto ay sheegayso gobolada jooga maamulada iyo militariga haysta in ayagu bal horta bilaabaan yiraahdaan dawladnimadii iyo hubkii anaga maanta kow ka noqonayna yaa loo dhiibaya marka hubka dawladda Soomaaliyeed baa jirta maya dawladda Soomaaliyeed lama dhiibi karo hubka waayo hadda waxa weeyaan wax nala jooga soo golihii wasiirada iyo kulli ra'iisul wasaarihi iyo soo dawladda qayb ka baahan waa qayb bay ka yihiin oo dawladdu waa dhisan tahay laakiin dawladdii base ay hubkii oo lagu aamino ma bahaysatay diga askariga haba qoriga la tagayo gurigiisa marka hubka la iga qaadayo horta xagee la dhigaya marka dawladda hadii dadku shacabka intay soo aruuriyaan dawladda hubka u dhiibaan xagee dawladdu geynaysaa maqaasin lagu xareeyo laba arka liiri askarigu hubkiisa asaga wata asaga abni ma haysto hubkii meel u geeyo ma haysto sheeb meel u geeyo ma lama arkaba xagee la geynaya hubkii maxamed cabdi yuusuf maxay kula tahay adiga waxay la tahay justification u sameyn maayo mataqaanaa hub hal la haysto waxaan ogahay dadka muqdisho degan ayaa u baahan maantay in mataqaanaa magaalada xamar ay ka xalaal ka noqoto hub lala dhex wareegiyo ama lagu shaqaysto laakiin dhowr iyo 20 sano dawladdu jirtay dhibaatada xamar bay ka socotay dalka kale kama socon maalin walba qof damiir loo wadaniyo markuu dhex joogo xamar waxa ka socday murugada calool xuma ku dilaysa maalin walba meeshaan lagu dilay wadana ay yaalaan ayaga la dilaya ayaga la qarxinaya ayaga balay ku dhacaysa marka justification in loo sameeyo maaha mataqaanaa ii sheeg xamar mataqaanaa hubka laga xareeyo laakiin doodan aan dhameeyay waxa weeye xamar waxa weeye number 1 dadka deegaanka xamar degan bay ayay u tahay mataqaanaa sharaf iyo wanaag iyo ammaan iyo noloshooda in xamar gacanta lagu dhigo xamar gacanta dawladda soo gasho iyo marka dambe loo laabto dalka jamhuuriyadda intiisa kale way doodan sidee laga yeelayaa doodan maxamed cabdi yuusuf mas madaxa laga dilaa baa leeyahay haddii aan xamar aysan daawooyin Soomaaliya dawa ma taalo anaa kuu sheegayay xamar cid dibadda uga soo duulaysaa ma jirto aan shabaabka ahayn dad u imaanayana ma jiraan gobolada iyo meelaha la joogana marka xamar id la arko waxa kulli waa laga dhigaya hubka ayaga dhan marka hub dajin hubka qaadis iyo hub la sameeyo waxa soo dhan marka ka baday maan laakiin magaala madaxda in la xasiliyo oo Soomaali xarunteedii iyo madax sharafteedii ahayd in loo soo celiyo anigu aan qaba anigu kumbarmees in laga galana ma qabo iskuushi loo sameeyana ma qabo dad badan baa waxay dawladda waxay mas'uul ka tahay inay dadka haddii hubka laga qaado ammaankeeda in la dawladda laga raba haddii iyadoo ay suuq kareen ammaanka dadka soo qaadayso hubka waxa weeye hadday suuq kartay qaadayso hadday suuq karin ma qaadayso hubka hadday aysan xanaanayn keenayso meel dhigi karin ma qaadayso laakiin haddii ay qaadi karto oo meel dhigi karto oo dadka ilaalin karto amniga ilaalin karto xaq bay u leedahay inay samayso
waxaa laga hadlayaa waxay tahay dooda inta badan ka imaanaysaa oo aynu maqalnay Axmed Daaci oo ahaa gudoomiyihii wadajir kalsooni badan baan jirin baa la leeyahay waxaa loo soo qaatay tusaalayoon wadamo dagaal ka dhaceen Rwanda oo kale oo la sameeyay gudi dib u heshiisiin South Africa oo kale markii ay ka baxday midabta koorka dadkii dib u heshiisiin loo sameeyay kalsooni lagu abuuray kalsoonidaas maqan sidee bay ku imaan kartaa marka waxa weeye horta marka ugu horeysa laba waxyaalood baan kala qaadaynaa waxna waxa weeye kalsooni iyo dadkii in la heshiisiyo Soomaaliya waxna waxa weeye magaala madaxdii saldhigga qaranka noqon lahayd in la xasiliyo amnigeedo gacanta lagu dhigo way haddii dawladda ay dhihi karto ayaan halka u fiirsaya hadday dawladda ku dhawaaqday ay sugayso amniga dadka deegaanka degan oo xamar ay sugayso oo qof walba dawladda isku halayn karo oo hubka dawladda qaada meel sugan oo la dhigi karo ay jirto oo suuqa laga gelino ama laga iibsanaynin waxa weeye waa waajib nasaaran in la sameeyo hadday xamar haysato dalka intiis kala waraysanaya xamar meel laga soo duulay shabaab uma soo duul kara shabaabna ciidamadii dawladda wixii dagaalamay shacbiga intood diyaar baa loo yahay sida daraadeed tuskasiyan u sameyn dawladda hadday qaban kartaan anigu conditionka ku xiran waxa weeye war dawladdu markay dadka hubka ka qaadayso xamar jegan oo amaanka magaalada soo celinayso shacbiga ma badbaadin kartaa oo amnigiisa ma ilaalin kartaa hubkay qaadayso meel lagu dawladda gacanteeda ku jiro qaranka gacantiisa ku jirta ma geyn kartaa way su'aalaadka meesha imaanaya laakiin hadday yiraahaan ayagoon hubkii meesha la dhigayo aan la garanaynin dadkiina ammaankiisa aan sugi karin waxbaan samaynayna dee wax suuracanaya maaha waa istaraatiijiyada taatikada aan lahayn wey teeda kale hubka dalka ha laga dhigo wakti dheer bay qaadanaysaa horta marka ugu horeysa waxa weeye inay dawladda awood yeelataa loo baahan yahay marka laakiin muqdisho beriyoorta waxay yeelanaysaa waa saldhigii qaranka weeye waa meeshii unugii qaranku ka mataqaana ifkiisu ka baxaya weeye marka ka bacdi marka xamar egaagto ayaa gobolada iyo deegaanada kale loo jeesan karaa marka xamar ha la sugo amnigeeda iyo jiritaankeeda ha la sugo hubka la ururinayana meesha la dhigayo ha la ogaado iyo ciidanka gacanta loo gelinayo isan meel kale aadaynin dadkan ha loo mataqaana ay sheeg kalsooni ha lagu abuuro dawladdu kalsooni ha ka abuurto inay dawladoodii tahay iyaga u shaqaynayso waayo waa maasan tahay maxamed cabdi yuusuf waxaan jeclahay senatarka nala jooga dawladdu ma haysaa arrinta uu ka hadlayo conditionka shuruudda uu leeyahay hadday awooddaas ma jirtaa hadda iisoo koofadla aad u mahadsantahay mawlid arrintan ku saabsan awoodda dawladda awooddeeda intay la egta waan ognahay arrintan waxa keenay degdegta lagu galana waxay tahay baahida amniga ee magaalada ka jirto waxaa ogta magaalada markii nin wasiir ah uu si kama uu ku dhintay laba maalin ka bacdi dawladda way fariisatay go-aankaas ay soo saartay arrimaha noocan oo kale oo istaraatiijigan waxay u baahan yihiin in daraasad iyo aad looga fikiro arrinta xasilinta waxay siyaasad muddo socotay ay ahayd dardargelin ayaa bilaabatay aadaanu soo dhaweynayna waa arrin aad runtii diilo leh oo in la bogaadiyo u baahan laakiin arrinta la xiriirta hubka dhigista waxay la tahay waxay u baahan tahay in xukuumadda barnaamij dhammaystiran ay usoo gudbiso labada gole arrintaasna runtii laga doodo la ansixiyo kabacdi wacyigelin waxay ilaa hadda laakiin dawladdu way bilowday way wadaaba qorshihii dawladdu way bilowday laakiin si xoog leh runtii uma bilaabana dhihi karaa hubka yaalo waxa fiican in taariikhda aan dib ugu laabano UNITAF iyo maxaakiimtii iyo awoodihii dawladdii Cabdullaahi Yuusuf madaxweynaha oo ka ahaa ay geliyeen mid u dhowna ma la gelin magaalada Muqdisho lagama qaadin waxa muhiimsan in nabadda la sugo xasilinta la sameeyo kalsoonida la kasbado ka bacdi ay fududaad kartaa in hub la qaado laakiin sida ay hadda ku socoto wayna adag tahay waxaana muuqata ilaa ay hadda kalsooni darro weyn al-shabaab ayaa magaalada Muqdisho dhibaato ka geysta waxa ka sameeya qaraxya ka sameeya iyagoo aan lala dagaalamin oo ayaga aan amnigoodii la sugin dawladdu soo inay isku furto bad kale ma ka bixi kartaa runtii aad iyo aad ayaa meeshaas walwal weyn aan uga qabnaa waan runtii degdegta meesha ku jirto waxaa loo baahan in xukuumadda xoogga ay saarta inay xasiliso magaalada ay la dagaalso al-shabaab maalin kasta dad ayaa ku dhintay marka dadka ay dareemaan amni maba jirto way ay ku haystaan hubka mana aha in loo marmarsiyo loo sameeyo hal su'aal baa idinku wareejin doonaa laakiin waxaan jeclahay dhegeystayaasha inaan hal mar siiyo waqti bismillaah magacaygu waa cabdiraxmaan maxamed oo jooga muqdisho waxaan isleeyahay runtii dawladda howlgalladan ee wadda hadda waxa weeye mid aad iyo aad u wanaagsan waayo waxaa hubka laga dhigayaa maleeshiyaad iyo dad aan runtii danaha guud ka shaqaynayn waxaan leeyahay runtii waa ku ammaanan tihiin hawshaa hadda haysaan dawladda waayo maalin walba waxaa lasoo qabtaa qolaal hub iyo dareysyo dad kale ay wataan oo habeenkii ummadda lagu dhaco maalintii ummadda jidgooyo loogu dhigto runtii waxaan leeyahay waa howl fiican ee wada dhammaan waddanka idilna ha laga sameeyo hadda magaalada muqdisho oo keliya degmooyin qaar laga sameeyey waxaan leeyahay
runtii howl wacan baad haysaane gabagabada ilaahay idinku guuleeya waa mahadsantiin b b c da waayahay aad buu u mahadsan yahay dhegeyste kale oo ugu dambeeya ayaan fursad siinayaa gabiley bismillahi raxmaan raxiim waa maxamuud warsame oo jooga gabiley somaliland rabadaan wanaagsan dhammaan bahda b b c da iyo dhegeystayaasha iyo martida barnaamijka haddii aan fikirkayga ka dhiibto qodobkan galabta hubka dhigis waa loo baahan yahay waxaase ka horeeya dib u heshiisiin guud oo dalka laga qabto dadka ka biyadiidsan hubka dhigistuna muqdisho laga wadana diidmadoodaasi waa mid ku salaysan cadaalad darro ay ka tirsanayaan dowladda federaalka maadaama dalkao dhan uu hubaysan yahay waxaa habboon marka hore in siyaasad cad laga yeesho sidii hubka dhigis ballaaran dalkao dhan looga samayn lahaa laakiin yaa hubka laga qaadaya yaa hubka ka qaadi karaya halkee lagu haynaya hubka dadka laga qaado muqdisho oo marka horeba tirsanaysa in maamul goboleedyadii laga qadiyey maamul goboleedna aan loo samayn haddana la leeyahay hubka dhigis baa muqdisho lagu samaynayaa anigu waxay la tahay walle timir lafbaa ku jirta wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu rabadaan kariim waa tahay rabadaan kariim aad iyo aad baad u mahadsan tihiin waxaan jeclahay inaan hal su-aal idin dhex dhigo professor warfa ayaan ku bilaabaya ugu dambayntii sidee xeero loo xagtaa baa la yidhahdaa ilkano ku nabad galaan sidee kalsooni dowladdu abuuri kartaa sidee hawshan lagu fulin karaa sidee xamarna amnigeeda lagu soo koobi karaa su-aashaas ayaan jeclahay min 40 sakin inaad idin siiyo 40 birqsi professor warfa igu bilow waa fiican tahay horta dowladda keliya aan lagu hadlayna anagu shacab baan nahay hubka muxuu ahay inuu dhibaato leeyaan ognahay qofka haystaa og qofka wax lagu yeelaa og marka hubka muxuu ahay hala maareeyo oo muxuu ahay siyaasad qeexan ha laga dejiyo muxuu ahay hubkana muxuu ahay aan muxuu ahay iska dhigna guud ahaan laakiin tilaabada lagu qaaday alibata ah la isku xijiyo oo marka hore dib u heshiisiin ha laga howlgalo maaragtay dib u heshiisiinta horta yaan la dhibasanin dad isdagaashan ma jiraan war anagu waxaan aragnay dad muxuu ahay aan maalintii soconoo habeenkii rabaan inay guureeyaan oo caruurtoodii qubuurtooda ay u muuqdaan oo waalidkood caruur u muuqdaan oo ayaga isu muuqdaan dib u heshiisiin looma baahna iyo dagaal ma socdayo yaan warkaas muxuu ahay aan waqti badan lagu luminin dib u heshiisiinna hal iclaamiyo hubka dhigistuna caam ha ahaato meel kastaba ha laga bilaabo laakiin xasilinta xamar 100% ha la taageero oo haddaba waxaa la leeyahay hubka dadka oo muxuu ahay libisana oo wadada lagu qabtay waa dad banaanka u soo baxay laakiin hubka yaal xamar iyo ka dawladda haysato waa isleeyihiin bakhaarada yaaliin waxay yaaliin garaashada yaaliin guryaha yaaliin godadkay ku jiraan hubka xamar yaal iyo muxuu ahay ka dawladda haysato waa isleeyihiin sababtoo ah marka waxa waaye hubkii 26 sano la isu diyaarinay weli dadkii gacantiisa ku jiraa hubka dhigis eraga ah aan dhameeyo dib u heshiisiin ha ka horeyso oo waa mahadsan tahay professor xamarna waa soo dhaweynaa aad baad u mahadsan tahay professor maxamed cabdi yuusuf isla su-aashaas marka ugu horeysa saaxiibka hadda iga horeeyey waxaad moodaa inay dad tixraahay horta marka ugu horeysa shacbiga Soomaaliya colaad ma qabana ku sheegay waxa isku diray waa koox yar oo danaystayaal ah oo shisheeye u shaqeeya iyo dan gaar ah wata way horta taa la ogaada loo baahan shacbiga Soomaaliya colaad isuma qabaani dibashiisi waa loo baahan yahay dadkii la wacyigeliyay waa loo baahan yahay walaaltinimada la soo celiyo waa loo baahan yahay in mataqaanaa la mideeyo waa loo baahan yahay wax meesha laga saari karana maaha waana number 1 wacyigeliyay dadweynaha Soomaaliyeed wax loo baahan yahay way sida daraadeed waxay ila tahay in la isfarbar la wado in amniga magaalada madaxda la sugo iyo wacyigelinta dadweynaha oo barale la wada socdo in laga shaqeeyo aad baad u mahadsan tahay hadda mas'uuliyadda haysaana hadda mas'uuliyadda laga rabaa inay iyadu waxa ku tilaabsan kartay ogtahay inay positive tahay inay ku dhaqaaqaan wixii negative ka iman kartana inay ka istaagaan baa loo baahan waa mahadsan tahay cornel adigana ii soo koob soo koobaya horta waxa weeyaan waa la isku raacsan yahay runtii fakarku ma kala fogfoga aad buu isugu dhow yahay laakiin dib u heshiisiin in Soomaaliya u baahan tahay nina la weydiin maayo laakiin dib u heshiisiintu tii Cabdullaahi Yuusuf qabtay oo kaleeto iyo midda hadda dawladdan ay ku dhawaaqayso waxaad moodaa iyada ruuxeeda in wax weyn ku jiraan waayo waxa weeyaan hadda dib u heshiisiintu marka la qabanayo weli gobol lagu qabtay oo la isugu tagay lama arko odayaal baa la soo aruuriyaa gaariyaal baa lagu soo qaadaa xeer lagu soo xareeyaa dib u heshiisiintu waa inay ballaarnaataa gobol walbana la tagaa waa mahadsantahay senator maxamed amiin runtii waxaan kusoo gabagabeynayaa aniga arrinta ku saabsan xasilinta magaalada muqdisho inay tahay tan laga maarmaan inay xukuumadda ay xoog saarto shacabka magaalada muqdishona ay tahay inay kala shaqeeyaan arrinta ku saabsan hubka dhigista runtii muran badan dhalisa aan dareensanahay in runtii gadood badan oo ka jiro waxaa ila haboon inaysan fudaydkaas aysan sidaas u fududeyn laga maarmaan ay tahay inay xukuumaddu
keento qorshe cad ay u soo gudbiso labada gole shacabka Soomaaliyeedna ay ka warhayaan kalsooni la abuuro taas maalintii amniga la sugaa ayaa runtii aad iyo aad baad u mahadsantahay aad iyo aad baad u mahadsantihiin aad iyo aad baan ka mahadcelinayaa waqtiga aad buu noogu yaryahay sidoo kale aad baan ugu cudur daarayaa dhageystayaasha inaan wada siin karin fursadihii ay halkaan cododkooda iyo fariimooda aan ku wada akhrin lahayn barnaamijka inta ayaan ku soo gabagabaynaynaa waxaan u mahadcelinayaa maxamed cabdi yuusuf oo siyaasi Soomaaliyeed oo horey ra'iisul wasaare u soo ahaa Colonel Axmed Warsame oo ciidanka Soomaaliya ka tirsanaa Professor Axmed Muumin Warfa oo la soo shaqeeyay qaramada midoobay iyo waliba Maxamed Amiin Sheekh oo senator ka tirsan baarlamaanka aqalka sare Soomaaliya barnaamijka Axmed Cabdinuur ay barnaamijka waxa soo duway Cabdinuur Sheekh Maxamed Isaaq aniga Mawlid Xaaji Cabdi aydan socodsiinayay waxa inaga xasuusaa inaan caawa hawada dib ugu kulmi doono hadii abeedmo 9 fiidnimo inta ka horeysa waxaan idinkaga mahadcelinayaa sidii wanaagsaneed barnaamijka aad uga qayb qaateen dhageystayaasha idaacadda iyo Facebook iyo internetka inta ka horeysa waxaan idin leenahay sidaas iyo nabadgelyo